iyadoo xilli abaar xilligan laga sii baxayo oo qaybo ka mid ah deegaanada ismaamulka Wajeer uu ka da'ay raxmadda Rabbi roobna la helay ayaa waxaa xilligan isi soo taraya dadaalada lagu caawinayo qoysaska danyarta ah maadaama xilli abaar oo aad u kulul la soo maray sidoo kalena dad badani ay xilligan awoodi laayihiin qutulyoonka ama nolol maalmeedka inay helaan. anigoo Suldaan Cabdullaahi inaan shaqadan dadka qabtay aan ka qayb qaaton ka mid ahay raashinkaanoo waxa weeye looga talagalay dadkii abaaraha ay ku dhaceen oo masaakiinta ahay oo gaar ahaan baadiyaha ku noolaay dadkaasoo waxa weeye soo qaxay oo soo barakaceen baadiyaha ka soo barakaceen oo tuulooyinka iyo magaalooyinka u soo barakaceen dadkaas qaarna baadiyaha ku hareen oo aan awood ay ku soo barakacaan ama ay ku imaadaanba aan lahayn annagoo waxa weeye hore u codsanay dadka ayaga in la kaalmeeya oo la garab qabto oo loo heelaya barnaamij gargaar ah oo ay wadaan salaadiinta bariga Wajeer ayaa waxa ay ku gaarsiiyeen ku dhawaad 400 oo qoys raashin isugu jira dhowr noocood. meeshan isugu keenay oo inaan intaan oo raashin ah noo yaraa iyo noo badanaaba aan urursanno oo aan walaalaha miyiga iyo magaaladaba ku rafaaday u ururino. ilaahay baa ku mahad iyo shukri leh khusuusan waxaan ugu talagalnay oo hoggaankeena sharafka leh Suldaan Cabdullaahi uu nagu hoggaamiyey inaan walaalaha baadiyaha ku dhib qaba aan wax u ururino annagana intuu alla in garansiyey ama sanana heliishiyey waa intaan falillaahi alxamdu wal shukru. Suldaan Cabdullaahi oo ah suldaanka beesha Masarre ee degta bariga Wajeer ayaa faahfaahin ka bixiyay raashinka maanta ay qoysaska danyarta ay siiyeen. waxoogay raashin ah inaad ilaahay gacanta noo soo geliya ay ka mid tahay raashinka la yiraahdaa ugaalida oo marka iyada dhinacayga taala oo ka koobneed 400 oo kiish oo ugaali ka kooban iyo 60 marka iyada loor ama 60 marka iyada bags oo sonkor ah ka kooban iyo marka iyada shaah ama caleen ama majaani aan iraahda oo 10 kartoon ah kartoonkiina marka gudihiisa ay 200 oo xaba ay ku jirta iyo dhar waxa weeye ay ku deeqeen marka ay bulshada inteeda kale community ay ku deeqeen oo marka ay halka yeel dharka waa halka yeela sonkorta iyo mijaaniga iyo boonshadaba halkaas ay wada yeelaan ayaa ilaahay gacanta noo soo gali marka iyo waalal biyo lagu shubta iyo boorsado marka dhar la gashada waxyaabahaas ay marka ay ku deeqeen dadkii muxsiniinta ahay. dhanka kale dadkii raashinkaasi gudoomay ayaa u mahadceliyay salaadiinta bariga Wajeer. kan waa mahadsan yahay haddaas ilaahay abaar nuu kacay ilaahay mahad leh roob haddana ilaahay noo keeni talka intaan noo soo mar waa mahadsan yahay magan alejisa kale waa mahadsantii inta maanta ilaahay intaan aadna kartisiyay ilaahay aan ku mahadinaynaa inta naka noocol calaadiyaan ku mahadinaynaa inta wax bixisay oo dhammaan aan ku mahadinaynaa dal iyo dibidba waxaan leenahay wixiina Allah barakeeyo ilaahay maarta xoolo barakeysan oo iimaan loo maarta waraad Allah idin siiyo. aad iyo aad aan u mahad celinayaa CPO1 Suldaan Cabdullaahi Eid program iyo inta ka qayb qaadatay oo dadkii dal iyo dibadda wala joogay oo ay kamid yihiin dhalinyarada professionalska haweenka aad iyo aad aan u mahad celinayaa oo weynay Suldaan Cabdullaahi waqtigan oo waqti xasaasi ah waqti abaar la joogo dadka ay oon iyo haraad ay u dhamaanayeen oo maanta la go'doonsiinay raashin aad iyo aad aan u mahad celinaynaa. si kastaba ha noqotee qoysaskani 400 oo qof oo maanta deeqdan raashinka la soo gaarsiiyay ayaa ah kuwa lagu soo xushay sida ay u kala baahi sareeyaan. Cabdiraxmaan Mucaawiye warbaahinta ismaamulka Wajeer.